بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا تاريخ وتهاي صدح بيش سجلات لبضة كون يلا بعتنك وحان شركة شرائد وقبتي إن كجاه الله أرن لهذا الهيئة مع المهن دنبه وكوس عبسان بوج للشاقي إن آن وافق سنين شريعة الإسلام كا oo lagu dhigo qaar ka mid ah dugsiyada dalka arrinka aan ka hadlayaa maanta waa cinwaankiisu waa ka markay taariikhdu ahayd 27 bisha 8 2020 wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Axmed Toorno ayaa la hadlay warbaahinta waxaanu xaqiijiyay jiritaanka buug ka soo horjeeda diinta islaamka oo lagu dhigo qaar ka mid ah dugsiyada waxa uu kale oo raaciyay inta laabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cidda ku cadaato arrinkaasi ama ku lug yeelata arrinkaasi waxa uu hareeyay oo xilka laga qaaday agaasimihii waaxda manahijta ee wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Yaasiin Diiriye oo xilkaas soo hayay in ka badan 20 sano agaasimaha xilka laga qaaday oo warbaahinta la hadlay 29 bisha 8 2020 ayaa isaguna dhinaciisa xaqiijiyay jiritaanka buugaas oo uu ku tilmaamay inuu ahaa buug kaabe ah oo aanu ahayn buug muqarrar ah maalin kadib markii ay taariikhdu ahayd 30 bisha 8 2020 waxa ka soo baxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland war saxaafadeed lagu sheegay inuu jiray buug cilmiga bulshada ah oo tusmadiisa ku jiro cinwaan tuhun dhalin kara sidoo kale war saxaafadeedka waxa lagu sheegay in maktabadaha qaarkood ay iibin jireen buugaas balse aan hadda lagu iibin Soomaaliland haddaba waxa isweydiin mudan oo aan wasiirka waxbarashada weydiinaya weydiinaha soo socda yaa ogolaaday buugaas in lagu dhigo dugsiyada qaar labo dugsiyada lagu dhigay buugaasi waa kuwa ma saddex maktabadaha iibin jiray waa maktabadahee maxaana looga joojiyay afar cinwaan tuhun dhalin kara maxaad uga jeedaan shan yaa tallaabo ka qaadaysaan ma dadweynihii ka hadlay dhinacooda jiritaanka buugga ka soo horjeeda diinta islaamka sida aad adiguba sheegtay mise kuwa ku dhigaya dugsiyada qaar intaas ayaan doonayay inaan idinla wadaago arrinkaas oo ah runtii arrin aad u muhiima yani waxbarashada ubadkeena iyo diinteena islaamka oo ah lama taabtaan oo aanay u oolin wasaarad ee inoo wada taalo dhamaanteen inaynu ka hadallo maadaama la sheegay buug inuu jiro buug aan waafaqsanayn diinta islaamka sidoo kale ubadka loo dhigi karaa waxa weeye maaha ubadka abayaasha dhalay iyo hooyooyinka dhalay kaliya dhammaan waa ubadkeeni iyaga qura ku hadlayn mayno laakiin waxa weeye waa ka hadlayna maadaama arrinku saas uu muhiim yahay ayaa kaliftay inaan ka hadallo weydiinaha shantaana waa mid ku maqan wasiirka waxbarashada inuu jawaabahooda nala wadaago waad mahadsantihiin